السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad inala socotaan kanaalkeen YouTube Dr. Liban Siyaad, TikTok iyo Facebook Dr. Liban Siyaad. barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa caafimaadka iyo bisha Ramadaan. Si qaas ah mowduuc muhiim ah kaasi oo ah waxyaabaha la yiraahdo gaaska ama gaas calooleedka oo ay ka mid yihiin laabjeexa, bug xanuunka iyo sidoo kale dheefshiid xumada. haddii aan barnaamijkeena guda galno, bisha Ramadaan marka la guda galo dad badan oo horay u qabay xanuunada dheefshiid xumada ama la xiriira waxyaabaha mataqaan bug xanuunka iyo gaaska keena way ku sii jibaarmaan ama qofka asoo hore isku arki jirin ayuu isku arkaa calaamado cusub. haddaba waxaan doonayaa inaan dul istaago mowduucaasi ka hadalkiisa sidoo kalena aan bixiyo talooyin insha Allah taala aan isleeyahay way anfici doonaan dadka soomaya bisha Ramadaan oo maanta maray afar inta ka harsan. sidaan ognahay bug xanuunka lalabada laabjeexa dhammaan waxay hoos galaan barnaamij la isku yiraahdo gaas calooleed ama gaas la isku yiraahdo inkastoo mararka qaar la kala qaado laabjeexa iyo gaaska caadiga ah. si guud haddaan u dul maro gaaska sidoo ama laabjeexa noqdo bug inuu ku noqoto waxay ka timaadaa in aashtada caloosha ay badato kadibna aashtaas caloosha ay badata laga yaabo in haddii qofkan gaas calooleed uu qabo bakteeriyada ku keeni jirta gaas calooleed uu qabo ama aashtada caloosha ay si qaas u baahan tahay in caloosha uu ku sameeyo kadibna aashtaas caloosha ay xanuujiyo. haddii laabjeex ay noqotana ama wax la heartburn ama gaas esophageal reflux disease xanuunka la yiraahdo waa in aashtadii calooshaas mataqaana ku baatay ama ha keento bakteeriya iyo arrimo kale aashto iska badan ama cuntooyinka qaar qofka uu cunaa keenaane in dib u soo laabato kadibna dhuunta kor u soo aado. intaas un bay kala duwan yihiin oo gaaska bugga ayaa ku xanuunaya oo calooshii ay xaggeeda xanuun ka jiraa. haddii ay noqoto waxa la yiraahdo mataqaana refluxka heartburn-kana waa in aashtadii kor soo aado. haddaba sidee uga baaqsan karaa inaan bug xanuun badan dareemo ama mataqaana soonkii uu qalal laga galo ama laabjeex badan aan dareemo? kow waxa ugu horreeya waxa waaye inaad wax ka beddesho qaabka aad cunto. haddaad ogtahay inaad bug xanuun leedahay ama cuntooyinka qaar ay ku dhibaan waa inaad iska joojida cuntooyinka qaar. haddaad ogtahay in laabjeex uu kugu imaanayo marka cuntooyinka qaar aad qaadato waa inaad iska joojida cuntooyinka qaar aad ogtahay oo dhibkaas kugu keenaya oo hore u darasiida. haddaysan jirinna aniga hadda kugu tibaaxaya qaar ka mid ah kuuna tixaya insha Allah tacaala. inta badan cuntooyinka keena in qofka bug uu xanuun lalaba uu yeesho sidoo kale laabjeex uu yeesho waa cuntooyinka lagu afurayo ama lagu soo xuranayo ama xilliga bisha Ramadaan la isticmaalayo waa cuntooyinka dufanka badan ku jiro. cuntooyinkaas dufanka badan leh waxay keenayaan in dheefshiidka uu daaho aashta badan lagu soo daayo kadibna halkaas mataqaana bug xanuun badan ama laabjeex ka yimaado. sidoo kale waxyaabaha la shiilo sambuuska burka iyo waxyaabaha kale la shiilo ayaguna qayb ay ka yihiin. isticmaalka waxyaaba basbaas kale caloosha maanta dhan marneed inaad isticmaasho basbaas way keenaysaa in caloosha ay ku siyaado ama ay caloosha siyaado soo deynta aashta tirada taasina waxay keenaysaa bug xanuun iyo sidoo kale laabjeex ama laab qarar. sidoo kale haddii qofku uu isticmaalo waxyaaba dhanaan sida liin dhanaanta ama cabitaanada mataqaana giscaysan ama bacaha lagu shubo ee uun aashtada badan ama maadooyinka badan citruska ka kooban ee dhanaan ay ku keeni karaan sidoo kale bug xanuun. cuntooyinka sidoo kale qabow ee la cuno waxay keeni karaan ayaguna in laakiin baryay qabow baraf ka maqlo laakiin waxaa loo jeedaa cuntooyinka xoogaa waqti yani muddo kadib la isticmaalayo ee laga yaabo ayagoon diiran in la isticmaalo waxay keeni karaan xoogaa bug xanuun ama qofka in mataqaana aashta badan kusoo laabato. haddaba cuntooyinkaas oo aad iska waardiyo oo aad isticmaasho cuntooyinka kale oo ka gidisan oo mataqaana aan dhanaanka lahayn oo aan aashtada lahayn oo mataqaana qaboobeyn way kuu suurto gelinaysaa inaad mataqaana aad insha Allah tacaala bug xanuunka tirada badan aad ka yaraado. sidoo kale isticmaalka caanaha xilliga suxuurta ee caanaha tusahaan suusaca ama mataqaana laga yaabo inay isbedeleen oo dhanaan soo gala aashta ay soo gashay iyaguna waxay kuu keeni karaan in soonkii aadan yani ku raaxaysan oo yani qalal badan oo dheefshiid xaggiisa kugu yimaado. intaa kadib cuntooyinka wax ku oolka la isticmaali karo caanaha mataqaana caana ay isticmaali kartaa cabitaanada isticmaalida cabitaanada sokorta ay ku yartahay isticmaali kartaa. haddaad cunto isticmaal cuntooyinka mataqaana waxay isaga dareyn waxyaabaha mataqaana biris miciyaha la yiraahdo waxyaabaha dhandhanaan cusbada tirada badan laga yareeyo. cuntooyinka mataqaana sareynta qofka hadduu isticmaalayo ha isticmaalo haddii bur mataqaana uu isticmaalayo cuntooyinka aan la shiirin ee burka laga sameeyey ha isticmaalo. canjeelaha haddii la isticmaalo canjeelada aan khamiirka ha la isticmaalo. cuntooyinka waxgal kala qofka wuu fahmi karaa waxgal ku ah wuu fahmi karayaa. marka insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa inaan cuntooyinka degan ee aan dhibka ku geysanayn ee aashta caloosha aan kugu badinayn inaan isticmaalkooda badana insha Allah tacaala. talooyinka ayaan ku siinayaa oo ah in haddii aad isku aragto laabjeex ama laab qarar ama bug xanuun tira badan ila laba tira badan aad isticmaasho daawooyinka yaray aashtada caloosha ee BPI-ga loo yaqaan proton pump inhibitor sida kiniga lasobrasolka ombrasolka laba waqti cuntada ka hor suxuurta ka hor iyo afurka ka hor 20 daqiiqo
intaada aan furin ka hor 20 daqiiqo xabad kiniin la qeydaa intaada cashayn ka hor xabad kiniin la qeydaa sidoo kale sharbooyinka aashtada yareeya oo aashtada la soo diiyay barxa ayaa isticmaali kartaa sida Gavisconka sida Malokiska iyo Alucidka sharbooyinka gaaska Pepsi Chill wixii markaas aad heli karto ama sharbooyinka gaaska cuntada kadib ayaga badan la isticmaalaa ka horna waa la isticmaali karaa laakiin badan gadaal ku fiican yihiin si aashada kaaga barxaan sidoo kale waxaa laga doonayaa in haddii aad leedahay reflux tirada badan heartburn ama laabqar ama laabjeex aad habeenkii isku daydo inaad barkinta dheereysato oo barkinta aad yani soo sar u qaadato si yani aashtadii gudaha kuugu jirtay aysan dhuunta usoo dhaafin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta oon uga hadlayna ramadaanka iyo gaaska maadaama ramadaanka uu bilow yahay in sidoo kale aan ka hadlo gaaska oo badanaa waxyaabaha ugu horeeya dadku ay dareemaan ayaan mataqaan ugu dan lahaa intaas inka badan ayaan ka sahli doonaa insha Allah tacaala sidaas iyo nabadgelyo